بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، cinwaanka kelimada ama muxaadaradu waxa weeye insha Allah uu noqon doonaa tanbiihu al-aaqil ala sakrati al-maghruur, ruuxa garashada leh oo aqliga leh oo wax fahmaya oo lagu baraarujiyo midka kadsoon sarqaamidiisa, mid kadsoon oo siran oo haddana sarqaan ku dhex jira. arrintaas oo ruuxa caqliga leh lagu baraarujiyo. maqruurka waxaa la yidhaahdaa bimacna almakhduuc, ruux la siray oo la kadiyey oo wax si uusan ahayn iyo xaqiiqadiisa wax ka gedisan loo tusay looguna qanciyey. marka waa ruux ku nool yani waxaan jirin ku nool waay, ama wax baatila ku nool waay. ruuxa noocaas oo kale baa waxaa la yidhaahdaa maqruur, waa kadsoon yahay, waa siran yahay. taasi marmarka qaarkood waxay keentaa ruuxu inuu nooc sarqaan oo kale ama junuun waali oo kale ah inuu galo. arrintaas ayaa waxaa lagu baraarujinayaa ruuxa caqliga leh ama fahmaya. cinwaanku waa kaas. allah tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim ibni aadamka ayuu wuxuu ku canaantay kadsoomidda uu ku kadsoon yahay rabbigii tabaaraka wa tacaala. wuxuu rabbigan yidhi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha alinsaan ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إنسانو محاكو كذيي محاكا ديغا ميد كتسون أو ربيكي كو كتسون محا ربيكا كو كذي محاد أسران تهي maxaad rabbigaa tabaaraka wa tacaala ugu dhiiran tahay asagoo allah tabaaraka wa tacaala uu yahay kariim, uu yahay rabbi tabaaraka wa tacaala midka deeqda badan, deeqsi ah oo muxuu ahaayey waxaa tahay oo dhan kaa dhigay. wuu ku abuuray, abuuristaadana rabbi tabaaraka wa tacaala wuu simay, xubnihiibuu kuu simay. fasawaaka, xubno fayow markuu ku siiyeyna haddana xubno isu dheeli tiran buu rabbi ku siiyey tabaaraka wa tacaala. bimacnaa allah abuuristiisa ibni aadamka markuu abuuray xubno fayowna waa siiyey, haddana wuxuu ugu deeqay xubnihiisu qaabkay u dhisan yihiin ee u samaysan yihiin inay isu dheeli tiran yihiin. gacmihii ma kala dheera, lugihii ma kala dheera, indhihii midna ma weyna midna ma yara. yacni waxa weeyaan wixii waa wax labadii isleba
وإسليكين وإسوديل ترين فعدلك أساسا لقوضا وهدي ربي تبارك وتعالى وسنقاب نوعاس ابن آدم كوا أبوري لها واردبون لها كالسوقات مثلا هدي لبضا اللقود من اللقابين لها من الديرين لها سموسن كذا يدمين لبضا قعمود منا هدي هالكا لقين لها من الديرين لها كور لبضا إندود هدي لك لتشيدين لها كور الله تبارك وتعالى في أي صورة ما شاء ركبك صور كون ربنا الله كسيي كو أبوري قاب كان كو أبوري maxaad ugu kadsoon tahay maxaad ugu dhiirantahay maxaad ugu khadacsantood ugu siran tahay waa canaan ma aha way macnaha inaad ku kadsoonto ma ahayn لأن waxa uu aqligu keenaya kariimka deeqda leh ee ku wanaajiyay inaad wanaag la qaabisho oo macnaha ay culimadu leeyihiin الله تبارك وتعالى وحوري بربك الكريم وحالغو تلماميا الله تبارك وتعالى كرمك يا وناجنت يا أبوريستا يا ديقدا يا النعمدا يا وحن كسيي كاما مضنا إناد حمان لقابش كاما مضنا إناد كديرتو كاما مضنا إناد كتسونتو بل كرم كيسو وحو مضنا إن لوغا الشكريو معناها ومعناها الله موجينيو حديث النبي صلوات ربي وسلام عليه بآيات التفسير كذا تقريبا معنى النبي كعدي كساروري بصير بن جحاش القرشي صحابي الليل هذا أي النبي كورنا صلى الله عليه وسلم وحجحاش ليه هاي بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفي فوضع عليها إصبعه النبي صلى الله عليه وسلم قعنت إذا على عشر أيو عنروف كتفي markaasuu candhuuftiyo cala cashayda ku jirta ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam farta saaray markaas wuxuu yiri qala Allahu azza wa jalla asagoo farta ku haya candhuufti oo cala cashayda ku jirta ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam alla wuxuu yiri ya ibn adam anna tu'jizuni wa qad khalaqtuk min mithli hada Allah wuxuu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam ابن آدمو سيباد إي عاجز قلين كرتها oo awoodayda aad uga fakan kartaa aniga oo ka abuuray kan wax la mid ah yaani waxaan dhuufti ala casha ku jirtay kanoo kale anoo ka abuuray seedii caajis gelin kartaa ilaa waan ogsoonahay asalkeena meeshan ka soo jeedno iyo waxaan ka abuuran hatta idha sawaytuka وعدلتك وقد خلقت وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد الله وحده تبارك وتعالى ابن آدم سيدي عاجز قلنيسا أنا عن روفتنو كلكا أبور مركان كسمي وان أبور كاغا إكيي أياد لبا مرو دحدودا انتاد حرتي بعد كسعتي dhulkii aan ku goglayna waad ku kor socotaa oo lugahaaga socodkoodii iyo shanqadhoodii iyo waad muxuu ahay ku tamashlaynaysa fajamacta wa manacta waad ururisay dunyadii baad isu keentay xuquuqdii lagugu lahaana waad diiday fajamacta wa manacta waxaad ku dul socoto waa dhulkaygii أنا كو أبوريو حبنهن إيه قابكن إيه سيدن كو إكي مريو أنوغو أنكو سيباد لبسن تهايوت كو حرقونيس دول كان آد كو دول حرقونيس أنا إسكالو بحيي وأنا أبورتي أو إسكالي أدو سيدا ساد وحي دول كوركي سيالي باد أروري سي واد كايدي سي واد ديغتي حقوق دينا واد ديد حتى إذا بلغت التراقي saa isaga tamashlaynayso soo halmaansantahay markay naftu kalxamaha soo gaadho oo inta doonto qaado waa lagu soo qabtay naftiiba jidhka intiisa kale laga soo saaray markay halka marayso kalxamaha ila nafta madaxa laga saaray oo la soo ururiyay oo xaaladdu ay gabagaba tahayba ayaa waxa tiri atasaddaq haddaan wax sadaqaysan haddaan wax bixin haddaan tukan
haddaan khayr samayn warkaasaad bilowday wa anna awaanu sadaqa buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala aaway waqtigii sadaqada ma jaanis baa kula yaalla markaa jaanis ma jiro waad tamashlaysay waad kadsoontay waad iska noolaatay waxaad doontaad samaysay markii lagu soo qabto xaaladdu gabagaba tahayna waxaad tidhi haddaan wax beddelaya oo aaway waqtigeedaa lagu yidhi waqti waad haysataa jaanis ma haysataa ilan jaaniska horaad u lumisay xadiidkaasi marka ayadda ayuu ku macno dhow yahay waxaana soo saaray alimaam axmed ibnu maajah sheekh albaanina caleyh raxmatullahi waa saxiixinaya macnaheedu waxa weeye marka noloshan waxaa la doonayaa aynu joognay adduunyada ilaahayga tabaaraka wa tacaala abuuray innagana inugu dhex abuuray in aan si taxadar ku jiro iyo iska ilaalin iyo isdhowrid ayaa la doonayaa inaad noloshan ugu dhex noolaato inaadan ishalmaamin inaadan kadsoomin inaadan xaqiiqadeeda iyo waxa ay tahay dhab ahaan ayna kaa lumin oo aadan u qaadanin wax kale xaqiiqadeedu hadday kaa lunto oo xaqiiqada ay tahay waxaan ahayn aad u qaadato waxaa kaa lumaya qaabkaad ula tacaamulayso waad gafaysaa waad kadsoomaysaa waad khaldamaysaa allah tabaaraka wa tacaala marka qur-aanka kariimka iyo xadiista nebiga sal alla alay wasalam waxaa aada ugu soo arooray ibni aadamku inuu kadsoomo xaqaa'iqda ka lumo fahamkiiyo garashadu lunto kadibna dhaqankiisu lumo kadibna adduuniya aakharaba uu khasaaro maxaa keena waxaa keena wuu kadsoomay wuu khaldamay waxaan jirin buu ku sirmay waay maxaa keena ibni aadamku inuu sirmo marka inuu kadsoomo se maxaa keena asbaab dhowraa keenta qur-aanku sharxay waxaa ka mid ah oo qur-aanka kariimkii uu tilmaamay dhowr aayadoodna ku soo wada arooray iyagoo wada socda shaytaanka iyo adduunyada shaytaanku waa midka sababta u ah ibni aadamka inuu siiyo sawir aan saxsanayn wax aan jirin oo baatilana wax jira inuu uga dhigo xaqaa'iqda saxda ana inuu khalad ugu muujiyo wax khaldanna inuu wax sax uga dhigo ibni aadamku inuu kadsoomo asal waxaa u ah shaytaanka sidaas daraaddeed buu rabbigeen tabaaraka wa tacaala inugu baraarujiyey markuu ku kadinayo oo ku khaldayo oo ku sirayo oo karkaarka ku weydaarinayo wuxuu ku isticmaalayana waa adduunyada dabinka uu kugu sirayo ee ku gashanayo ee uu kuu soo marayo iyo iriddu kaa soo galayana waa adduunyada labadoodii baa dhowr meelood qur-aanka laysdaba dhigay allah tabaaraka wa tacaala maalan fii suurati luqmaan aakhirkeeda wuxuu uhi yaa ayuha annaas ittaquu rabbakum wakhshaw yowman laa yajzi waalidun can waladih walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay-a ina wacda allahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu اddunyaa walaa yagurannakum biاllahi algharuur wuxuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala wardadow alla ka baqo iska jira iska ilaaliya waxaad ka baqdaan maalin uusan waalidku ilmihiisa waxba u qaban karin waxna ka celin karin waxna u tari karin sidoo kale kii la dhalayna waalidkiisa waxba uma qaban karo waxbana kama celin karo labadii isdhashay waxba isuma qaban karaan waa maalinta qiyaamada waa allah tabaaraka wa tacaala yaboohiisu waa xaq wuxuu idiin sheegaya soo socda waa xaqiiqo waay waa wax sugan oon shaki ku jirin ee yaysan idin kadinin noloshani yuusanna idin kadinin midka kadinta badan sida laysu daba dhig u fiirso noloshan adduunyada ee dhammaanaysa iyada dhanba iska dhow ha ku kadsoomina iska ilaaliya si taxadar ku jira ula dhaqma iska jira khatarteeda ku baraaruga ninka kadada badanna kadinta badan ee halista ana asaguna yuusan idin kadinin oo muxuu yahay waa shaytaanka aayadda kale sidoo kale rabbi tabaaraka wa tacaala uu yidhi yaa ayuha annaasu ina wacda allahi xaq wardadow ilaahay yaboohiisa waxyaalahaas koo socda uu idiin sheegayo waa xaq
وحقيقية وحسوها وشككم أجره فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير شيطانك الدنيا دو يسن إذن كذين نرشان يين إذن كذين سيدو كلاميتك كذين تبضن يوسن إذن كذين ولا سيعد يوحى للشيطانك عدو بو إذن هاي عدو كالإكتا kooxdiisii xisbigiisuna wuxuu ugu yeedhayaa inay noqdaan saciira naarta dadka gubta naarta dadkeeda inay ka mid noqdaan umbu dadka ugu yeedhay asxaabtiisa meel kale kuma wado cidii warkiisa rumaysato raacda meel kale uma wade hoygooda iyo masiirkooda halkaas ku wada marka rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu u tiiriyay ibni aadamku inuu ka soomo laba arimood baa keenay shaytaan oo been u sheegay shaytaan oo been u sheegay ilaa markuu ku luminayo oo ku khaldayo oo uu doonayo inuu maslaxadaada ku seejiyo adduunyo aakhiraba waxaan jirin buu ku hordhigi wixii xumaan buu wuxuu kaaga dhigi fiicnaan waxaad ku khasaaraysay buu kuugu muujin inaad ka faa'iideyso wixii wanaag ahaana wuxuu kuugu muujin wax lagu khasaarahay ilaan sidiisaba asagu ma qasbo dadka ma qasbo oo intuu kuula yimaado muxuu ahaayay ul iyo shaabuug iyo kuma garaacayo laakiin wasiiladu isticmaala waxa weeyaan inuu wax kuu qurxiyo dabin kuu dhigo kugu shukaamiyo kugu qalqaaliyo kugu riixo kadibna aad gasho ma aha inuu ku qasbayo ma saas daraaddeed maalinta qiyaamada markuu tago wuxuu leeyahay muxuu maana idin qasbay maana idin qasbay ma xoog baan idin ku galiyay ma xoog nugaada galinay de waad noo qurxiso waad nagu qalqaalis de haddaan idin ku qalqaaliyo idinka qaatay fala talumuni wala lumu anfusakum aniga hay eedina idinku is-eeda anigu maxaan lahaa kaliya wixii baan idin qurxiyeeyo waan dabin baan idin dhigay laakiin dabinka idinka galay marka idinku is-eeda marka shaytaanka muhiimadiisu wata quraanka kariimka markuu isdaba dhigayo wa shaytaan yuusan idin kadinin waa mid kadin badan oo ibn aadamku wuxuu ku lubiyaba waa kadinta iyo sirta uu siraye hayaadan waxa la daba dhigay adduunyada yeysan idin kadinin adduunyada say dadku kadisaa waxay dadka ku kadisaa sida quraanku tilmaamay waa meesha uu qurxinayo ee dadka uu ku luminayo sida rabbi tabaaraka wa tacaala markuu shaytaanka lacnaday oo naxariistiisa ka fogeeyay oo la eriyay markuu sujuudi diiday aadam inuu sujuudo markuu diiday oo rabbi tabaaraka wa tacaala lacnad ilaa adduunka dhamaadkiisa la soconaysa ilaa aakhiro ay wuxuu yiri rabbi bima aqwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in rabbi yow luminta aad ilumisay iyo baadiyeynta aad baadiyeysay darteed ولا وحان أقرحن دولك دحديسا لأزينن لهم في الأرض دولك دحديسا أقرحن ولا أغوينهم أجمعين كدبنا دمان تود بان ودا الضوف صنون لمن إلا عبادك منهم المخلصين الضومها آد كحولتين مويه انت آد أدوه حولتين إلى شتي أنا أود أولهين كواس مويه انت وضك لا ولا إنا لمن محاد كل من إيسا دول كان أقرحن واحد إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا بمعنى وقروح ذا هدان الدنيا ذا لقرحين لهاي أون مرضا قروح ذا بدن نفتو تعيش هاي أو تقولنا تفاصيل هذا كريه هذا إيو بابورت هذا إيو محو هاي شهوات كذا إيو محو هاي مناسب تهدي تشغوين كذا إيو حوله هذا إيو haddaan waxoogaa nafta la jeclaysiin lahayn oo loo qurxin lahayn oo sawirkeeda saxda layna siin lahaa maba aynaan agteeda ma aynaan marneenba laakiin waxa la isku ibtileynaya waxa weeye wixii baa la qurxiyey quruxayna lahayn baa la siiyey saas macna yaani waxa weeyaan waa sidii gabadh aad u quruxsan adoo gurdoon ah ayaa waxaad aragtay gabadh aad u quruxsan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala dhaban siiyey
waad ka daba dhacday daahirkaas adiga iska raac haddaad meeshii tagtay oo inaad guursato lagu qadarayna waxaad filaysa waxaan ahayn baad meeshii ugu tagtay ajab wartani aawe wixii ii muuqdeen daba ordahayay ee aan balaayo kasta u maray aawe wixii meeshii waxa yaalaba xaqiiqada daba ordaysay ma aha guriga habeenkaad gashay banaanka u soo booday bag war waan sirna oo waa la khiyaamay oo waxba la ii gashaday oo waa la indha sarraxaadiyay oo waa la sixiraday saas waa adduunyadu xaqiiqadeedu waa saas yani waxa weeye waa sidii haweentahay jamiilada jamaalkeeduna uusan xaqiiqo jirta ahayn markaad marka ku dhaxdhacdood salka gaadho ayaad marka waxaad garan xaqiiqadeedu inay kada ahayd macnaha way macnaha quraanku marka muujinayo waxa lagu sirmaye lagu khaldamayaba waa iyada iska jira marka mid leeyna leeyahay ee digniinta laga bixinayo quraanka kariimka rabbigan inooga digay taas war iska jira war meeshu waa dabin war waa imtixaan war quruxdani xaqiiqo ma aha war dhadhankeedii macaankan iyo xaqiiqo jirta ma aha war wuxuu waa imtixaan is jira taa way mid leeynagu baraarujinay fala taqurrannakumul hayatud dunya wama al hayatud dunya illa mata'ul ghurur ayat kale adduunyada dhan isku soo dar waa alaab yar oo lagu kadsoon yahay alaab lagu siran yahay waa alaab loola dhaqmayo xaqiiqadeedii waxaan ahayn oo dadku ku siran yihiin way adduunyada markaad isku darto dhan sidaas quraanka kariimka tilmaamaya Allahna tabaaraka wa ta'ala macnahaasi quraanka laftiisa si cadeeyo dadku intooda badan ilaa wax yar oo Ilaahay u naxariistay mooyee inay dibkeeda ka badbaadaan iyo dabinka inay ku dhacaan uma badna aabaheen aadam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam shaytaanku markuu doonayay inuu jar ka tuuro oo jannada ka soo saaro wuxuu u maray waxay ahayd adduunyada u qurxiyay qurxintii buu nabi ilaahi aadam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam ku kadsoomay ومدى وليه يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى آدم تشندو كجرا إبليسي أبو الله حريري الله أعلم مركز وحكي آدم ما كنت ساعة جيد هداد عنته أتكهلي لواء الريموت أريني وحوي وبقرتوية يا كرسي أرنت اللبان وواريتان عن جيري لهين وجيد لجور رجمدي وا جيد دو مجع أبحي أو يروى جيد دي واريتان كيا كرسي يا بقرتوية ده وجيد دي مركي لعنا وحي كدع وآدم لوجسو إريم حوحي كنا دي لجسو صاري وإنك كذيت كان يقلب كان ينوجو قبصدي وحى صورن بهالشي ودتي يروحوا كم مجع جيد كي وارد ده إيوه iyo mulkiga asaas wax jira ma aha laakiin qurxintan iyo magacan iyo waxan isaga sameeyay haduu sameeyina waa lagu khaldamay marka qurxinta iyada ha ku kadsoomina labada arimood waa laba qodob oo quraanku in badan tilmaamay adduunka ha ku xasilin adduunka ha isu dhiibin adduunka ha israacinin adduunka taxadar tilaabadaad qaadayso ee adduunyada u qaadayso iyo qaabkaad u isticmaalayso iyo muddada aad ku dhex jirayso taxadar farabadan iyo su'aalo farabadan iska weydii macnaha la tilmaamay kaas ha intifaacsanina ma intifaacsada laakiin markaad intifaacsanaysaan taxadarkiina qaata meesha waa meel lagu rogmado lagu baabaaye godka ha ku dhicina dabinka ha gelina isjira macnaha way macnaha Allah tabaaraka wa ta'ala آيات كلت كتل مامي إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون كوا أن رجيني لكولا كنجا إن إلهي لكل ميانو لحساب تمدونه رجك ما قبل كمان بقيا ورضوا بالحياة الدنيا الدنيا ذا نورش هذا الرالي بيكون نقدين واطمأنوا بها يدي كحسلين روى كمان مغرب
ilaahay baad la kulmiya aakhira iyo janno iyo naar iyo xisaab iyo meeshaba uguma jirto haduuba caloosha wuxuu galiye helay meelu ku hoydana helay xoogaa yarna meel dhigtay reerna guursado shahwada gutay wabillahi tawfiiq waxba kama maqnaba intaasuu ku xasiloon yahay oo uu ku degan yahay oo raali ku yahay oo ku qanacsan yahay oo wax intaa ka maqani ma baraadinayba walladina hum an ayatina ghafilun wuxuu ilaahay soo dajina waa moog yahayba rasuul baa la soo diray oo kutub baa la soo dajiyay oo ilaahay baa jira oo niyo xuquuq baa lagu leeyahay oo sidani sax maaha oo waxba ka khaldan abadan la dhukan col iyo abaar moog wuxuu ka warhay ma jira ayada iska dhaxta baalan wuu ka lahaa subaxdii habeenkiina wuu soo hayda wuu seexda wuu soo toosa noloshiisu inta kama badna Allah tabaaraka wa taala wuxuu yiri kuwaasi hoygoodu waa naar waxay kasbadeen sababtiis marka taasi waa qodob sababta koobaad ee kadsoomida keenta ruuxu inuu adduunyada ku kadsoomo khaldamo waa shaytaanka sababta labaadna waa adduunyada uu isticmaalay quraanka kariimka adduunyadiiba hadana si kala faahfaahiyo qaababka loogu kadsoon yahay dadka qaar kood waxay ku kadsoon yihiin waxoogaa ilaahay tabaaraka wa taala adduunka wuxuu ku siiyay awood xoog buu leeyahay jismi ah jirkiisa xoog leh وعافيمات قباء إلهي تبارك وتعالى أود بأردليي أما أود كليتو عيدا يا ميليتري يا وحوجا وهيستا حبا مانين كاسوق يرى آدن وكتسون يا مرك كأن روح محوها هاي دروجة عبي أو سرقان صنع وحكي الكور هينين أو كليتويه مانين كأنت ساوحوه وعي كلورنا وحوم أوجا سيد ربنا تبارك وتعالى كتل ما بين يمكن اللي يشري رعد فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منه قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون رعد وكبرين وإسلوين هذين أولك دحديث كبرين حق درين وكبرين يعني كبر أولك دحديث حق ما بتشرب لكن وحلة المامية كبر كودو إنه حد جذب سيادة أها لأن كبر أولك اللجوء كبراي مرنا بحق من نقد مرنا بحق من نقد لأن الصفات كبرية صفات كبرية إلهي بأسكاله روحي كوقف صدق كل الضوضاء يعني إنه الله يشاء اسكت ضينا الله تبارك وتعالى نار بكتورة أدون كانوا وكدوا ليه صاصي معنا صفات محوها هاي وينيدا هي كبر كإلهي بأسكاله صفات ربي هو مركوي إسكبريان محاكينا إن إسكبريان إلهي تبارك وتعالى مركو أبوري الرعاد وحسيي أود شركة ونمن آدوا وين بيهاين حوق بدن حوق أود دودي بمركع عجبسي تيبي كوكت سومين إلى أي لهذين من أشد منا قوة ويابا أنك نجح حوق بدن مركي النبي الله يهود ويمين ويدور والدين هلاي ورسيدا وحكب بدلا ورقال من الإسكداية ورإلهي كتاب كيسير رسول كيسر راعة ورإلهي تشيك سمحي دابل هاي إلهي تكالس من أشد منا قوة يا نجح حق بدنا نجح إلهي تكالس أنا نجح نجح كمان كريوي إن هلاقي كرا ابن آدم وكا شالي هيقول ضعفاء وعن رفعة ومنيئة وحنشر ليقة يلاهي تبارك وتعالى أبوره ما أنت مركو حوجا اسكو يردو بالردينة وحوليها من أشد منا قوة يا نجح حوج بدنا نجح يا اسكو كانت هاي كرا يا وحنا قبان كرا بتاعين الله تبارك وتعالى جوابه سيو أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة روحوا وحجرت مهميين أوجين وجرنين اللي هي أبورتي إنه يجا كأود بدين الله أبوري يجا إنه كحق بدنيه وكأود بدنيه هميين الأكسونين وأوجيهن واسكيل يليه لكن محمد أحمري أو سرقامي أو أي لك تسويهن أو كسريهن حالة مالن كأيكون حشران حقا ساعة شبيه معناها سقران كريم كتلمامي
aayadihi rabbi tabaaraka wa ta'ala waa diideen waa ku gacansayn rasuulkii waa ku gacansaydeen kitaabkii loo soo dejiyay waa ku gacansaydeen maxay ugu gacansaydeen oo yaa naga xoog badan bay taagan yihiin qurayshna markii nabi maxamed u yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo ilaahay ku waaniyay danahoodii masaalixdooda inuu tuso isku day adduunyo aakhiraba waxay yiraahdeen maya wax annagana loogu hanjabaa ma jiro waxna loogu goodiyana ma jiro jasiiradda annaga ugu awood badan annagaana ugu xoog badan ciidanka ugu badanna annaga iska leh yaa wax naga qaban kareeyay waa mid rabbi tilmaamay tabaaraka wa ta'ala ee uu yiri am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur ma waxay leeyihiin waxaanu nahay dad midaysan oo awood leh cidii isku kaana taagtana waanu ka adkaanaynaa masaasay leeyihiin wuxuu rabbi tabaaraka wa ta'ala ciidanka badan iyo awoodda ay sheeganayaan way jabi doonaan waa la jabin doonaa dabadana way jeedin doonaan rabbi tabaaraka wa ta'ala de waqti badan ba kama soo wareebin badar ba ciidankii awoodda sheeganayeen ku jabeen dabadana ay jeediyeen odayaashii faanahay abal tabartii safiir ibn aadamka saasay macna ayagoo kun iyo ziyaada ah nimankii saa u faanahay 312 wiil baa hilfaha u qaaday waraaway wixii yaa wax naga qaban karay taagnaay war ibn aadamow xaaladda maalinka aad tahay iyo xoogaaga hagu kadsoomi waxa la mid ah maalinka aad dhalinyaro tahay oo xoogaagu is haysto oo jirkaagu is haysto oo caafimaad qabto laguma karayo xooggan iyo awoodan iyo waxaad ku bixinaysaa meelan ilaahay raali ka ahayn xafaad burburin inaad wax kharibto wax burburiso macaasi gasho waqtigaaga ku bixiso meelan munaasib ahayn markaad soo godato oo jirka boolbool loo kala furfuro oo daciiftood oday noqoto yaad markaa soo urursani masaajidkan hadda galaya baad leedahay waraawi awoodi waa talkan ay ku dambeysay salaada hadda ila taag awa hadda salaada ila taag marka yani waxa la doonayaa awoodani iyo xoogani jismiga iyo caafimaadka ku kadsoomin yuusan ku sirin waa waxa maalma ah kadibna waa dhamaanaya hadduu sii joogana waqti buu leeyahay haddii kalena inuusan joogin baa dhici karta Soomaalida arag mid kibirsan oo isqaad qaadahaya oo xoogiisa wama adunnu as-saa'ata qaa'ima wala in raja'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna Allah wuxuu tabaaraka wa ta'ala ibn aadamka haddaan dhadhan siino naxariis xoog iyo caafimaad iyo wanaag hadii la siiyo naxariis alle iyo nicmadiis dhibaato haysatay oo taabatay kadib abaar baa ku dhacday barwaaqa la sii cudur baa ku dhacay caafimaad baa la sii wuu tabar darnaa awood buu yeeshay faqiir buu ahaa xoolaa la sii Soomaaliyeed isagoo dhib qabi baa dhibkii inta laga qaaday baa ilaahay tabaaraka wa ta'ala wuxuu siiyay nicmadii iyada ahayd waa sarqaamaya miyirkii iyo garashadii baa ka tagaysa waa kadsoomaya waa sirmaya markaas wuxuu leeyahay hada li ana iskale ana iskale wargoormaad yeelata maya ana iskale ab iyo awoona waan ka soo gaaray buu leeyahay wargoormaad ka soo gaaray soodii shalay miskiinka ma waxa ma ogid tartiib soo kule hada li ana iskale buu leeyahay ana shaqaysta xoog baan ku keenay aqli baan ku keenay garashan ku keenay dadaal baan ku keenay buu leeyahay hada li inta kaliya ku gaabsan maayo wuxuu leeyahay وما أظن الساعة قائمة وحساعد لي هذه قيامة إن إيمان يسنى إلى ما بحر ورء خرافة بحس كع مساجدي ودادة ويدي وما لا وحكوش شيء كعويدي قيامة ما جرت آخرنا ما جرت وحنا بقى ونسك الشيء برليوه وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى كما السوقات مر ميسين وحقيامة لي هذه لكن كما السوقات هذا كو تنازلون كو هذا way jirtaa de waxaan aad arkayso dadaalkii la igu siiyay umba aakhirana tii wanaagsaneed la igu siinaya mabay kula tahay adduunka intaan waxan ku haysto aakhira in la qadin doono ma wax jira ma sidaan adduunka kaaga fiicnay baan aakhirana kaaga fiicnaan doona waxani ila aakhira jiri doonaan waka hadda shalay bay dhibaatayso shalay ba dhibaatayso laga qaaday
laakiin maadan basaas ma fikirayo laakiin waxa haysta xaaladda marka uu ku jiro ayuu la tafaaculaya marka kaana xaaladaas ku sarqaamaya waxay xaaladaasi halmaansiinaysaa wuxuu ahaan jiray iyo wuxuu ahaan karo wuxuu hadda yahay inuu fahmaya xaaladda wuxuu yahay bas wax ku qaybsanay war waxaad soo ahaan jirtay ma iska daa war waxaad ahaan kartaa ma iska daa war waxa isbedeli kara ma iska daa xaaladaas oo dhan uma yaal waa sarqaansan marka sarqaankaas marka la leeyahay waramayo iska daayay isjira oo bahashan adduunyada ha ku kadsoomina quwadaasi marka iyo awoodaasi dadka qaar baa ku kadsoon dadka qaar kood waxay ku kadsoon yihiin maalka iyo xoolaha oo ilaahay tabaaraka wa tacaala intuu wax siiyay baa waxoogaga ay haystaan baa waxay ku halmaameen xaqaa'iqdii ay ahayd inay la noolaadaan Allah tabaaraka wa tacaala tusaalu bixiyo nin la dhihi jiray qaaruun ayuu tusaale ku bixiyay fi suurati al-qasas aakhirkeeda ninkaasi nin aad u xoolo badan buu ahaa inna qaaruuna kaana min qawmi muusa fabagha calayhim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة حوله سوحي قارين سيد ربي تبارك وتعالى أشيغي حولها معه خسندها هي استوردة أي حوله كتشران فرياشوضة هل نين إيلوان مقادي كران وإن كوحرق إسوغتي مادو وإسلقادو إسليهم جيسو هل نين ما هو يسنيا لبن نين ما هو يسنيا وفرياشي هذه فرياشي أساسيين خسنده وحي كجري كور الله تبارك وتعالى وحو عبري يعني تعبير نينك إلهي إنه الدنيا كهر قفي الدنيا لقو مشقي تلكي بأمرك اللتلي وحقاقي اللسيي عقلياري يقر الشيران إيو محوها واكت سومي واسرمي ninkii waaba kanba wax kale oo ma garanayo tolkii baa marka la taliyay hadaad waalantahay tolka baa ku miir qaba la yiraahdaa soo saasma hadaad waalantahay tolka baa ku miir qaba tolkii baa miir qabay way waaniyeen waxay ku yiraahdeen la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihin war qaaruna wa kibrin ilaahay kuwa kibra ma jecel kibirka iska daaniyo وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وحن إلهي كسيين دارت آخرة كرادي حولهن صحي آخرة كردقو دار آخرة كرادسو ولا تنسى نصيبك من الدنيا وحي قدر إلهي الدنيا ذا كاقا قرينها هالمامنا كقاضو الدنيا ذا وحي إلهي كاقا قرينها حلال أقاضو حولها قلنا آخرة كرادسي كوانية ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وردول كانها فسادين كبير كان كدا قوقا شوج حد قدب كان دا فساد كي مفسدين تإله ما تشعل دول كفساد كان كدا نيو وانا لو تشيدي ولو عقلي عليه وفيرس جوابتيس قال إنما أوتيته على علم عندي وارني واتسكها الله يسامبولي حمو جدن حولها وحل يقسي على علم قراشو كوركيد او عندي اكتيدا احات اقوم باليوسي قراش halيوسي laba macna culimadu way ku sheegan inuu ula jeeday ba suroobi karta xoolahan waxa la igu siiyay aqoon aan anugu u leeyahay iyo way aragnimo aan u leeyahay qaabka loo shaqeysto way arag baanahay aqoonta qaabka loo shaqeystanahay yana qana sidaas daraadeed aqoontay ay ku timide la iskama kaysiinin war ilaahay baa ku si ilaahay ka baqsoomena dhig war la iskama kaysiinin ana shaqaystay buu leeyahay waxa ka fiican macnaha labaad oo dhahaya inma utitu ala ilmin indi garasha alla uu garanay inaan mudnahay oon dadkeedii ahay oon istaahilo baa la igu siiyay saas macna waan istaahilaa maaha macnaheeda waa la iska kaasiyayo waa lagu ihsaan falay war ma waa istaahilaayo تي هدو الله أركينا نستاهلنا ساسا ليقسي الله تبارك وتعالى وكتشوا وحولي بل هي فتنة أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا ورنينكم يوسن أوغين السجا هرتي
قرون فربضان وإساقا كحوك بدن كان حول بدن إنه إلهي هلاقي تبارك وتعالى متاريخ ذا أخريه نوح للصعد معه إمسا كحول بدنيدو أدون كصومرتي أو إساقا حول إلهي بابي إمسا كحوك بدنيدو إساقا كحوك بدني هدنا ألا بابي حولها إيو حوك اللغو السينة ياي معنى هذين لغو تشعل ياي معه معنى هذين لغو تشعل ياي إن لغو الربنا معه إن هذا استهيشنا معه لكن سيدة آيات كلا الله كنت ما بل هي فتنة وامتحان محو قرن وايي marka ninkaasi wuxuu garan waayay oo uu halmaamay oo qafla iyo quruur kaga dhacay xaqiiqada inuu fahmo war waxaan shalayna maada haynin maantana gacantaadu ku jira barina waa ku dhaafi karaa waxa lagu siiyana waa imtixaan warniyo taxadar oo is ilaali oo xoolaha intay gacantaada ku jiraan uga faa'iideyso dantaada adduunyo dantaada aakhiro inta waa heli waay maxaa keenay inuu heli waayo waxa weeyaan uu sarqaamay waxa sarqaamiyay oo miirka ka qaadaya garashada wixii baa ka hor muuqda Allah hadii lagu imtixaanana garashadeeda iyo aqligeeda iyo xikmadeeda lagu seejiyana ayaga ku wadanaya ayada ku wadays isaga ku hogaaminaya isaga meeshu doono ku gelinaya noloshaada xataa qaabkay noqonayso isaga xoolaha xadidaya xaafada dagayso iyada xadidi guriga aad samaysanayso qaabku yahay iyada xadidi waxaad guriga dhex dhiganayso iyada xadidi diilka aad bixinayso iyada xadidi maqaayada aad ka qadaynayso iyada xadidi Soomaali ayada ku wadan baashi baa ku wadanaysa marar fara badan khiyaarka ka lumi laakiin hadii aqli iyo xikmad iyo cilmi iyo ruuxu taxadarka uusan qaadanin oo uusan xakamayn ku darin saasoo kala ku dhacaysa marka dadka qaar kood xoolahaas ayaa sarqaaminayo miirka ka qaadayo ay ku kadsoomayaan xaqiiqadii marka loo abuuray iyo ujeedadii oo dhan bay ka lumayaan tusaale kale tuu quraanka kariimka bixiyay oo isla masaladaas oo kala ah oo rabbi tabaaraka wa taala fi surati al-kahf uu ku bixiyay واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا بل نكا تسالها الله كبحي فيه ربي تبارك وتعالى وحول النبي محمد ضدك وحاد مid tusaale u siisa oo u sheegtaa qisadan cajabta badan labadan qisadood waay labadan midkood alla wuxuu siiyay laba beerood oo cinab ah labada beerood cinabka ah waxa lagu kor wareejiyay timir geeda timir ah u fiirso labada beerood ee cinabka ah waa laba beerood oo isa saaran korkaana waxa kaga wareegsan beer timir ah وجعلنا بينهما زرعا تمرت geedaha iyo beeraha cinabka ana waxa u dhaxeeya badar beer badar ah muxuu ahay masagadi galeeydi waxyaalihii kale go'ayay waa adugu barwaaqo isa saaran waay waa beer isa saaran Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu kilta aljannatayn aatat ukulaha labada beerood mid kasta midhaheedii bay keentay oo ninkii siisay waxay ka nusqaamisayna ma jirto waxay u soo go'een labadii beeroodba si aan caadi ahayn dalag waxa uga go'ay aan caadi ahayn وفجرنا خلالهما نهرا لبدا بيرود دخدودا waxa la burqiyay wabiyaal ila durdura iyo wabiyaal ba meeshan durdura ladu fiirsado loo sawiray beero isa saaran oo nooc oo beertii yar yaray tii geeda ahayd cinabkii dhulka daadsanaa muxuu ahaayay geedkii timirta ahay taagna biyo hoostooda qulqulahaya barwaaqadaas la siiyay sida markuu alla isugu dubariyay tabaaraka wa taala fakana lahu thamar mira usoo go'ay wixii markuu arkay nin saaxiibkii jiray oo markaasuu ninkii saaxiibkii wuxuu ku yiri asaga oo la dooday ana aktharu minka maalan wa a'azzu nafara ana ka xoolo badan kana dad badan ka tol badan hadday tol noqotana de ana ka tol badan oo ka lan dheeraysan
hadday xoolo noqotona dayma gaari karto waxan miyaad haysataa saaxiibkii ku leeyahay inta kumuna akeenina wa dakhala jannatahu beertiisii buu galay wa huwa zaalimun li nafsi isagoo naftiisa dulmiyay oo khaladku galahay naftiisa ay ku soo noqon doonto markaas wuxuu yiri ma adunnu an tabida hadhihi abada ila ma ahabu mana malaynay midan inay baabii doonto tan miya wax dhamaanaya ma ma tana dhamaan sidan isu saaran marwaaqadana tagi ma dhacaysa buu mana malaynay taa iyada طيب wuxuu yiri wama adunnu as-sa'ata qa'imatan saacadan iyo qiyaamadan laga hadlayo aakhiradana ma filayaba wax iimaanaya inay tahay aakhira ma jirto adduunyo ba jira adduunyana waxaan ku haystaa waxaanina wax baabii doona ma wala in rudittu ila rabbi hadii xagga alla la ii celiyo dhacdaba inay aakhira jirtana oo ilaahay u tagana la ajidanna khayran minha munqalaba adduunyadan wax ka fiican meel loo godo lagu noqdo tan ka fiican yaan alla agtiisa ka helaya hadan aakhira tagana tan wax ka fiican ba ii jira hadii kalena aakhiraba ma jirtaba waxaanina wax baaba'aya ma ilaahay baa idinku dhaariyay bal sawirka u fiirsada shalay ma beernayn beertani shalay xoolahan muusa haynin shalay waxaan iskuma duba dhacsanayn waxaan jirin bay ahay markii la siiyeyna ma filayo inay dhamaanayso leeyahay warniyo waa sarqaansanta waa daroogaysanta nin wax ogmatihid xaqiiqadu laba noolid غرور iyo kadu ku jira marka waa ninka marka intuu wax isku dubariday oo dhulal maxaa guriya maxaa caruur ah maxaa accountiga ku jira maxaa muxuu ahay ma guurta maxaa kan tan wala tan ina laga faqiirin bule tan laga faqiir maxay wala waa laga faqiiri adiga ismooti marka wuu kadsoon yahay ruuxii kuwa kadsoon waa khaldan waa khaldan yahay waxana jaah wareeriyay oo maskaxdiisii wareeriyay oo xaqiiqadii garamariyay Allah tabaaraka wa ta'ala macnuu inoo sheegaya marka quraanku ina barayo waxa weey war ha kadsoomina waxani wax jira ma xaqiiqa ma aha waa dhalanteed waa daandabangaale waa wax aan jirin oo horay aan u jirin haddana waxoogaa filin adiga waliga filin yani wax weeyaan dad waxaad arkaysaa filin intay daawadaan oo filinka daartaan oo marqaamaan oo jidboodaan oo qosqoslaan oo cabaar say u jidbaysan yihiin marka dambe iyagoo indha dirdiraan diray indhihii daaleen oo lulmaysan bay daadanayaan waa sida midka daroogaysan qaadka cunahayo mesela muxuu ahaa daroogada ku jirto oo kale daroogadii markuu qaadka cunahayo yani waxay la tahay inuu ku jiro jannatu naciim ilaa waa saqaansiin moogto waa qaadiraysan marka waxay la tahay adduunkan oo dhan adaa iskale waxaan dumarka suuqa socdaan aday ku foofaan daarahan taagtaagan oo dhan adaa iskale waxaan oo dhan aday ku soo hoydaan suusa ugu hayo oo u sarqaansan yahay wax yar miirku markuu ku soo noqdo uu soo miiraabo mise meel banaan buu fadhiyaaba war wixii aaway hada been bay ahayd markii hore suusaas ma marka saas oo kale waa hadaad uu nooc sarqaan u isaga jirto xaqaayiq aan jirin la noolaato waxaad indhaha ku kala qaadi markay dhabtu timaado ma aqna anni maliya halaka anni sultaniya xoolahayga waxba iima tarin suldaanki iyo boqortooyadii iyo kursigii iyo awoodiina baabaaday calaacal iyo waxba ku taray Allah tabaaraka wa ta'ala marka macnahaas ayuu meelo far badan oo quraanka kamida ku tilmaamaya dadka qaar kood waxa kadiyay qaar xoolahaas kadiyay dadka qaar kood waxa kadiyay jaaha iyo manaasibta yani kuraasta sidoo ruux caadi isaga yahay ayuu kursi ku fadhiisanaya madaxweyne noqonaya wasiir buu noqonaya muxuu ahaay wuxuu noqonaya muxuu ahaay PS buu noqonaya sulad muayyan u qabanaya bas markuu mas'uuliyadii qabto warinku ninkii shalayba ma ahaba faarixi shalay aan qaanimo ba ahaba war maxay iska ka bedelay maya abuur cusub in la abuuray baad muddaa qaab dhaqankiisa iyo aqligiisa iyo tasarrufkiisa waa isbedelaya maxaa keenaya waa sarqaansan kursigaas sarqaamiye markuu kursigii ka soo dago oo maalmaha kamida banaanka la soo dhigo yuu dib u fiirin markaasuu dhig wallahi waayaha waan wala hada markuu saarna ma garaneen inuu waalayahay laakiin markuu ku fadhiyo
wax walba ka indhatiraya waxan uu ku dhex jiro tana wax walba halmaansiinaysa markaasuu wuxuu u dhaqmayaa kaannahu waligi isagoo saarnaan doono kale kursigan uusan ka degaynin laga saaraynin ka baxaynin tasarrufkaas uu tasarrufaya dulmi wax dil wax kharib wax kala tuur muxuu ahaay kaanna wax way isagoo ka soconin oo kale u dhaqmaya quraanka kariimka rabbi tabaaraka wa taala macnaheena waa ku tilmaamayo dadka qayba kamida inay kuraasta iyo jagooyinka ku kadsoon yihiin fir'aun baa miisaal looga dhigay wanaada fir'aun fi qawmihi markuu nabi ilaahi muusa alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam u tagay oo ku yiri war fir'aun ilaahi rumee oo kitaabkan qaado oo adiga tolka iyo reerkaaga ilaahi tabaaraka wa taala ateeca fir'aun waa dhawaaqay qowmkiisa iyo tolkiibu dhexdooda ka dhawaaq shirku isuuka markaasuu yaa qowm alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin tolkayow miyaan boqortooyada masar miyaanan anugu lahayn masar boqortooyadeeda soo anigu mali wabiyaashan aad arkaysaan iyo waxan ilaha aana soo aniga hoostayda ma durdurayaan miyadan arkayn waxan maxaad u arki laadi soo idin ma muuqato ma ana khayr badan miskan muusa ee liite mahinka aan sigayninba inuu wax cadaysta xataa يعني أن حاجتي حتى عديسن كريم كان لي تأ موسى يا أنيجا سيد سكان قرب لي جيسان هل كاسان أنو صار نهاي سيقولنا مسكين كارلول كتشوجوا وانين كرسي وريري نبي جينا صلوات ربي وسلام عليه وحو كعبري تعبير عجيب حديث البخاري وصوصاري النسائي من حديث أبي هريرة إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة مدحني مدى آيات كد دالي دونتان وحين نغن دونتا قوم مو يحسر ما ننت قيامة قال قوم مو دونتا ننكي حل يرقب طيو إلا إن إلهي حريستي مويه ولا سؤال بدن باكو تعالى إله محاكو جي فرط لحظة مر بدن واتك قريني فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة وبنبي صلى الله عليه وسلم مركي تشقيسو eed ku fadhido eed magaceedii iyo jaaheedii iyo xoolaheedii iyo sumcadeedii intifaacsanayso waxay ka dhigan tahay sidii hooyo naaskeeda aad nuugayso kale ilma yar oo naas jaqayo kale maana wax la iska fujin karo ma fa ni'matul murdi'ah nanuujisa way ku nuujinaysa marka waxeedii baad yaad ku mamanto daba ordaysa oo gurubsanaysa oo awood iyo xoog iyo madaxa kaga istaag iyo qaraadistaadii rabitaankaaga dharji waxaad rabtan samee way wadataa markaa way nuujinaysaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wabi'satil murdi'ah wabi'satil fatima markay sanaaska ka goyso markaas ay baas lahaatay gormay naaska ka goyn ama adooba jooga adduunka laga riday kursiga ama ma ahe waad ka dhimatay hadiiba ay ku dhaafto hooyo naaskeedii ka goysay way alla maxaa dhib ku haysta way ilmaha yarka marka naaska laga jaray soo mar rafaado oo maxaa dhib ah oo lamuusan qabsanin oo caanihi oo wixii oo dhuuban oo kadeedmi oo ilmihii rafaad ila uu la qabsado oo marka dambe naaska ka go'o nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi taasu ku tilmaamay mithaalkeeduna waa iska cad yahayo warninkii fiicnaaye shalay akhyaarta ah dadku ay ilaahay waaba wadaad masaajidka iyo khayrka iyo safka hore iyo wanaaga iyo umada khayrka u horseedi jiray maanta markuu kursiga fuulay wuxuu soo baxay wax kale konton sano 60 sano haduu ku fadhiyana haba yaraatee markuu ka degayay ugu macaan badanta marka laga qaadayo ugu daran yahay bal ahdaastan hadda caalamul arabi ka socdo fiiriya يا والقذافي يو أفرتني الدور سنة طول صار نيدي يا أفرتني الدور سنة واحد كهلي ويدي
ee ku laabaneed ka heli muxuu yahay idinku ma fahmi kartaan qadaafi waa miitaal cali cabdallah saalix iyo muxuu ahaay mubaarak iyo shaynul caabidiin iyo jibrjaan oo dhan waxaan aad arkayso waa ibni aadan dabeecadiis waay taas macna ku fadhi ruuxii ibni aadamka ahaa Soomaalida waagii ay dawladdu u dhisnayd oo kuraasta iyo dawladda iyo wasiiradii ay jireen raggii waxna wixii bay ku dhinteen qaar badanna markay kuraastii ka soo degeen oo dadkii la mid noqdeen ilaa dadka la mid ma ahayn oo ay masaajidii iyo safafkii iyo dadkii wax lala hadli kara ay noqdeen oo lala sheekaysan karo oo baa qaar far badan baa xaqaa'iqdii bay fahmeen qaar badan oo waxaad arkaysaa ama jeneraal aha ama muxuu ahay wasiir aha oo kule dawladdii Soomaaliya burburkeedii faa'iiday noo ahayd isaga iska hadlay shakhsiyan burburkeedii aniga faa'iiday yahay maxay yeelaadaan sidii ku dhiman lahaa shaki kuma jiro in naarta gali lahaa oo goormaad garatay markaan dhulka soo istaagay Sooma markaasuu miirsado indhaha kala qaaday intii ka horreysay oo dhan indha kala qaad male ma fahanti marka quraanka kariimka iyo waxyigu markuu tilmaamayo leeyahay war ha kadsoomina war ha sirmina waatan hal doon daradeed ba ya aad looga digay oo quraanka iyo sunnadu ay digniin ziyaada ah ka bixiyeen war iska ilaaliya war ha raadsanina war ha dalbanina war ha u ordina war iska fogeeya hatta hadii lagu la soo doonto iska durki meeshu meel sahlan ma aha meeshu waa meel rag ku baabay wax ka badbaaday baaba yarba suusaasma marka ruuxa ibn aadamka waa kadsoomaya waa khaldamaya wixii baa ka khaldamaya xaqaa'iqdii baa uu ka leexanaya wabillahi tawfiiq karkaarku way tarsanay aadam waa kan soo sheegnayo wixii loo soo maray oo shaydaan u soo maray markuu luminayo ibliis oo uu jannada ka saari rabay wuxuu u soo maray waxay ahayd kursi iyo waaritaan aadam oo geedkan cun wadan cun maxaan ka helaya waxaad ka helaysaa kursina waad heli boqortooyo iyo waaritaan aadam shaki baa galay ilaa aadam mar hore ilaahay digniin siiyo wuxuu iska jir adiga xaaskaaga cadowgu idin yahay iska jir baa lagu yiri hora looga la dardaarmay aadam markiiba kuma qancin laakiin wuxuu sameeyay ibliis وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين إلهي بقول دارت إلهي بنقول دارت دنتني مصلحتي نداعد بنك أهيب داعد بن إذنه وحي هذا العلماء نبي آدم عليه السلام وحكوكة سومي وخلدي دارت إبليس هو يقانه لكن اسمه صلهين مخلوق إلهي أبو رتيبة بين كدارن موسى إسلاهين دارتها سامرك خلدي بيلي هذه جور لي ده boqortooyo iyo waaritaan waa meesha la inaga soo galay waxa ugu dambeeya oo doonaya insha Allah ta'ala inaan ku khatimo laba qodob sheekh hadra waqtiga wali qodobka muxuu ahaayay kale ee quraanka kariimku tilmaamay oo dadka qaar kood ay ku kadsoon yihiin xaqa iyo wanaagana ay u diidaan wax weeyaan waxay cilmi moodeen oo cilmi ahay cilmi aqoon in isleeyihiin bay moodeen ayagoo jaahiliin ah jahligi cilmiga ugu muuqday baa marka kadiyay cilmigi xagga rabbi ka yimid way yaseen waxaan uga baahanahay bay waxay ilaahdeen waxaan ugu filan aqoontanada waxaan uga baahanahay kitaab kor ka soo daga rasuulna loo soo diro annaga waxaan ugu filan aqoontayada aqoon baan leenahay taanadaan ugu filan qolana taasa kadis Allah tabaaraka wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim wuxuu ku yiri afalam yasiru fi al-ardi fayanzuru kayfa kana 'aqibatu alladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fi al-ardi fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله تبارك وتعالى وحيري مين دولك سكونين oo aynan u fiirsanin ummadihii hore ciribtoodu waxay ku dambeysay waxay ahaayeen kuwa iyaga ka badan kana awood badan
dhulka raadkiisa iyo saameyntana iyo raadkay dhulka kaga tageenna ka badan waxay kasbadeenna markuu ilaahay cadaabkiisa yimid waxba uma tarin awoodii يعني waxay dhiseen iyo aathaartii iyo wixii waxba uma qaban falamma jaa'atuhum rusuluhum bil bayinat rusushi loo soo diray markay ula yimaadeen xujooyinkii cadcada baraahintii markay ula yimaadeen oo yiraahdaan war xaqan qaata ilaahay buu kayib cilmigan qaata farihuu bima indahum min al-ilmi waxay ku farxeen wixii agtooda yaalay oo cilmiga ahaa waxay cilmi u haysteen oo iyaga agtooda yaalay bay ku farxeen oo waxay dhigeen kana nagu filan كيف يكون كتسومين علمي أي كهالليان نوا جهلي حقيقة دي سمركة ترى نوا جهلي لكن علمي بأوهستا علمي بأوهستا تاسع مركة كديسي أو خلطي أو يكون كتسومين أو قرب مريسي إني إلهي وحي جيسي علمي قدبتها إني قاتان تطفر بدل ما أنت تاسع هيسوت خاصة ضبقة الله يقانو ضبقة متعلمين تا إيا مثقفين تا aqoontoodu aynan aqoonta diiniga ahayn in badan oo kamida waxa haysata farihu bima indahum min al-ilmi waxoogaagi ay barteen ee cilmi adduunyada ah ba intay cilmi moodeen bay ku farxeen isagii bay ku kaaftoomeen cilmi waxyi waxba uga ma baahanin quraan inaan baranno cilmigiisa baranno ahadiis baranno fiqh baranno dawaa professor يا وبروفيسور في الفيزياء في الإحياء في الطب في الهندسة بروفيسور ما على واحد أقامتي أوسر رئيسي بأدونك يا آخر إنه هيو إسواهستا وبالتالي وركالي القرآن دقيسو أو وحي قد دقيسو أو تفسير قد دقيسو أو فقه قد دقيسو أو الله وحي كيمت كالي قاضي اللغو كريم مايو ضبقات لباهست فرحوا بما عندهم من العلم ساس دراد ددك فائديستو دينتك فائديست ددك ugu nasiib yar waay saas macna xalqa cilmina inay yimaadaan waa yarta inay quraan ka faa'iideystaan waa yarta maxay waxa ku jira nooc isla weynan wadaadkan uu hor fadhiisanayo wax uu sheegay dhageysanayo wuxuu leeyahay warkaasa maxaa ka dhageysan kaas wadaad aan adduunka bal la soconin weey يا ودادنا أدونك بالله سؤال محات كريس مركا فرحوا بما عندهم من العلم وحوقاقي هيين باكذيي باكتسويهن مركا وحننا علمي ما علمي لنا الدنيا مركا الله في رواية إن لبرتنا والله بهاي إن لقى فائدة استنا والله بهاي إلى هير من مركا قاركو ذو حوقاقي يا فرض الكفاية ومضوا إني قيب كميدة تقانو علوم تمنافع ذلك ولازم قيب أمتك كم يدين تقان لكن معناه هذا معها إن أذو قاضة وحكو قفلا أو كافين كرا علمي وحيقا هذا أذو قاضته أو اسمها هذه الصو بلا يدو مركزي كويسة ويسع عجب بسي مركز عذر نوحا أقو خطر سن سيدي السبب دنبي لقلنا أقو حليسا إن النفط هذا كو عجب بسو حتى أقوان هذا أقوان شرعيها النقط إلى أمات الشيخ عالم النقط هذا مرس عجبيسو والنفط هذا أبوكتو وضدو كلا دمان ويد هذه قوم نسكون نقطة أمانتو محو هاي عجبيسو ونفط هذا كلا ويناتو ترى والله هذا ماشان أقول سرية وكذا بحل كربا بس واي أقول مات نبي جنا وحكت من صلوات رب السلام عليه إنه لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم من الذنب هديدان دنبابي لهين وحان إذن كبقي لها واحد دنبي بكوين العجب واسم هذه انت اسماني تروح اسمانوا ما حي دنبي أردن وقوينت أدونكم مركو دنبي وين قالوا لكن اسقرسن يهي إنه يهي أدون إلهي إنه الليتو ضعيف يهي إلهي تبارك وتعالى إسليدي دا أسليدي إيا باهي دا مجستي الله إنه باهي بابا إلهي وقدم دافيا أدونكيغي waa iskartay waana igartay waanu dambi dhaaf laakiin markaad is cajabisood xogaa is afuufto ilaahay tabaaraka wa taala garabkaagu ka baxaya sooma marka waxoogaa yarkee ee cilmiga ahayd baratay asal waxay ahayd culumta adduunyadu inay sabab kuugu noqoto inaad raadiso cilmiga rabbi xaqiisa ka yimi tabaaraka wa taala saasa asal
waxayna yidhaahdaan xataa culumta daarrada culumta xataa asal ahaan aan nafciga lahayn sida cilmiga sixirka oo kale ruuxu markuu ku xeel dheeraado akhiiran marka dambe waxaa dhici karta inuu gaadhsiiyo sixirku inuu baadil yahay sida saxaradii nabi muuse oo kale alayhi wa ala nabiyina waxaan dhihi lahaa saxaradii fircoon ee nabi muuse dooda la gashay oo kale culimadii fircoon baa ahayn Soomaa markii ay sixirkii keeneen oo soo dadaaleen oo khubaradii ugu cilmi badnay sixirka la keenay muddo waxay ka soo shaqeynayeen ay soo dhigeen nabi muusena ushiisii u dhigeen ushiina ay in yar u gurubsatay wixii buuraha la moodahayay ayba cuntayba iska qaadatay fawlqiya saharatu sujada nimankii saaxiriinta ahaa sujuud bay la daateen qaaluu aamanna bi rabbi هارون وموسى في آيات كلنا برب العالمين رب موسى وهارون إلهي بان رمينا ده فرعون وحق وحبك مجر وصوك كرت إنه سحبك كجر ده السحر بعد إله نواه سحر جينا إنه سحبك كجر أرجنا وحكوين بايمت أقانتي السحر كوحي جارسي وحي كجر إنه صنوح جراهن صامة إن بدنا هذا أدونك كم ده أخاتير تيسا وابن آدم كيشيل كيسا يكون تخصصته markay arkaan ibn aadamka iyo jirkiisu qaabku u shaqeynayo ilaa aqoon aan u lahayn bay u leeyahay waxan ilaahay isku rakibay tabaaraka wa taala isa saaran xubin walba shaqadu leeyahay iyo si isu saaran yihiin iyo siday wax isu siinayaan iyo ibn aadamku siduu ugu baahan yahay qaar fara badan bay sabab ugu noqonaysaa inay soo islaamaan cilmigi adduunyada wuxuu gaarsiinayaa inay Allah rumeeyaan tabaaraka wa taala qaar fara badan waxay la yaabayaan quraanka kariimka iyo siduu uga warramay ابن آدم كيقابك الله أبورو إلا القرآن كوحو الشيء مراحش ابن آدم كوكمرا يؤورك هو يدا حلي آن تشيرين طبي كو تشيرين حديث كا أو قلب كؤوسن تشيرين أو المها اللي أوغان كرين مراحش أو مرأي أيا قرآن كريم كي كور رمي مراحش أو مرأي ودنبو شيء مركي أركان هذا علمي الحديث كا يقلب كا يمركو تصير أركان مراحش وني مراحش تا قرآن كن يدور بقول الصلاة كهر وكسي ورمي نفسي أي سيدينا تاعي قار فربنا وحي لهذين ولا محمد اخترنا ما أهين ما قالنا ما تشوقين قلبنا ما هي سنين وحا وركن أوش يا جاي علمي حديث كا ودب كسو جاي حقيقة ده شكي كمتشر إن كان حاجة إلهي إن ورلوجا كاني إن عكلوا وركهلا إن بدنا كم إذا صاب يقولون خنيس وحلدونا يا مركا علمي جو مادي سي أهانتي سبب الروح وحكوها نونيا علمي وحيي أصل كها لكن هذا السجن أنت ميلا فريسة اسمه إن هذا حيسو وإنه قد فرحوا بما عندهم من العلم وحكي أصل كها أساسي كهانا كتكتو واتكتسون تاي مركز وقتك أيان سامحين أنت كفر بدن أنت إن شاء الله تعالى أنكو أكيو وحلدونا يا مركا يا مهمته أي تاي يا مقصودكو الدنيا ذا أن كنا لهاي علمي كذا أود هذا حوله هذا جاه هذا ضمانته وكذا والضبن إبليس يا الشيطان كو أديكتو أديك وحل دونا يا مرك وناق هذا ست حدر كتير إن هذا فائدة ست وحي أتكه شنا صحيح آخر كرديكو ولا تنسى نصيبك ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا اسجر تحدر اسئلالي هكتسومنو هخلدمن طريقة هكلمنو ييسن كوريرينو اسجر نولول اسجريد يتحدر الدنيا دان كلها دقن اديغو نبد قبا او بد قبا باد كبخي اما اديغو بد قبا او نبد قبا ku dhaafi ilaahi tabaaraka wa taala xaqiisa markaad aadana wanaag iyo inaad ka raysato mooy u darsan mees sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam الناس مستريح ومستراح منه حديث ابي قتاده في صحيح البخاري dadku markay dhintaan laba mid waa mid adduunyadan uu ka nastaa dadna waa laga nastaa dad waa laga nastaayo munaafiq iyo gaalka iyo faajirka inuu dhulka korkiisa jooga dhib ah inuu noolaada dhib ah wuxuu dhibayaa geedaha malaa'ikta dhulka cirka makhluuq oo dhan baa dhibsanaya dhimashadiisa marka waa lagu raaxaysan sooma dadka qaarna ayaga nasanayo raaxaysanayo
mu'minka ilaahay yaqaanee taa'ica adduunkana iska ilaaliyay aan kadsoomin asaguna markuu dhinto isaga nasanaya muxuu ka nasanayaa ya tacabkii adduunyada ilaan si kasta hadaad u laadan tahay soo adduunyadu tacab ma adduunyadu waa rafaad soo ma walbahaarki murugti cabsidii dhibaatadii daalkii urduxumadii khatartii wixii ku haystay caruurtii reerihii wixii uun maskaxdaada haystay ama jirkaaga haystay dhib aha khalaas maalinkaas kugu dambeeya waad nasatay saas daraadeed baa adduunka waxaan lahayn dhacaynina ruux mu'min ahaayo daa'ic ah oo ilaahay yaqaanay oo adduunkan dhaafay marnaba ilaahay ugu celi ma dhahayo mana weydiisanayo mana jeclaanayo una qoomoon maayo allahumma hal ruuxa mooye halka ruuxa mutaqana ya hal ruux baa codsan doona ilaahay adduunka igu celi oon mid labaad jirin ruuxaasi waxa weeye waa ruuxa mu'minka ah ee ilaahay dartii loo dilay shahiidka ah asaguna adduunkii ugu celi markuu leeyahay lex jecla adduunyo umar codsanaye wuxuu rabaa inuu nicmadii shahaadada mar labaad soo helo oo mar saddexaad soo qaato oo mar afraad soo qaato ilaa wuxuu ku helay buu arkaa Soomaa halka ruux baa jira asagana wuxuu u soo noqonayaa kasab aakhiro soo siyaadso ama adduunyo jacayl ruux u soo noqonaya ama codsanaya oo mu'min ah oo taa'ica ma jiro waa nasanaya Soomaa marka adduunkani aan ka nasanne maalmaha yarkan joogno yuusan ina kadeedin warka murtidiisu intaa way jazaakum Allahu khayran wa baraka fiikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير الشيخ محمد المنوالي محمد المنوالي في حق شيخ الدين أدوية الكريم خير العصير لأن دورها شعب الصومال هذا ما يسوي دورها نقول عليك نص إسلام مسؤولية دعوة أنا صارت إن دعوة حوالها شغالة أقول بحيو مساجد أقول صوت مدارس أقول صوت مساجد ترى كامير حتى أراني بعض خدنا الله أبوي خير الله سويك وهرب الشخاص أقول يا محمد مركا إخوتي في الله أدري يمكن وهذا صح أنت والله وحنا هنا إلى يوم جنبه كلامه أنا دلالة سين النور قادر الورثين شكرا عليها الله يجزاك على حسنات الصعبة مرة دعوه فقط يا شيخ محمد مشهور فيها إنه ذاك متقام سنة وفايدة ولما مردوه نكبوا هذا الرافي إن شاء الله نريد هدية أصابوا كفاية سكرة فجزاه الله خيرا كثيرا ووضع هذا الخير في ميزان حسناته يوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سؤالك بالفهم يا شيخ محمد. سؤالي أنا بقوم بلا جواب دونا صلاة محمد أنا وقت إشاء وجواب. سؤاله قف أن حاشاه سمع صغر شيخ محمد. سمع البحر الطالب. ها. أصلاً سبحان الله سبحان. سائلك wuxuu leeyahay waxa la dhaho banka point ma riba ama riba ma banka point ma aqaan inaad fasirtaan bay u baahan tahay sida loo sharxay haday tahay oo mesela airtime ka ruuxi wax badan isticmaala inay wax u dhigmayaan adowna oo taqriiban ama lagu siin doono ama kaash aad u qaadan ama airtime ahaan aad u isticmaali hadii lacag adigu aad leedahay meel lagu dhigayo haday sidaas tahay waan u maleynaa inaysan ahayn dhib ma lahaatay laakiin macnaheedu waxa uu egtaa waxa loo yaqaano al-jawaa'iz at-tijaariyya macnaheedu waxa weeye ganacsigaas gal ama ila gal waxana faa'iid sida mesela hadda bangiyada qaar kood waxaad ku arkaysaa account furo 1 milyan faa'iid waa ribo waa khamar baan dhihi lahaa khamar tanna waxay la mid tahay intaas oo lacag isticmaal hadaad inta isticmaasho intaasaan ku siinaynaa waa nooc marka khamarka kamida
waxaana lagu magacaabaa aljawaa'iz tijaariya mana banaana sharcan laano dhowr sababood baa loo diiday oo ay ka mid tahay labada caqdi waa laba caqdi oo midna uu tabarruc yahay midna uu caqdu mucaawada ismana galaan khamaarna waa ku jira wuxuu kaga jiraa in badan oo dadka ka mid ah isticmaalka waxay u galayaan biqasdi inay helaan muxuu ahaay lacagta iyada inaad heshana way suroobi kartaa inaad weydana way suroobi kartaa inaad weydana u badi soo saas ma marka laba gooraba shirkadii baa ribxayso faa'iideysa dadkii intooda badanna isticmaalkan galayna ee wax ku raadinayana heli maayaan mid iyo laba laga yaabaa in wax loo soo tuuro kadibna joornaalada lagu qoro la buunbuuniyo oo la isku siro oo محمد صح أساس ما هو كونغا بوينت محاوي هذا الأيتين هو واحد اللي أيوه روح محل سين يا محل كيف مثلا باللبا أو خلينته أو الله حيني وحلو ما مرة بلا ولا روح ولا سين معناه هذا محوي شعب الرحمن ما لعقت هذه أيال لجو جوينيا مال لجو لجيا مسي هداد قدرك أنت ساستعماشه أبى الجود كاسل هذا لو هذا كي تهاي واحد ما lacagta wala goyna lacagta wala hayna lacagta wala hayna qadar intaas ku mixir oo lagu jareeyo inta ka aqaan saas ma lacagta wala hayna okay su'aasha isweydiinta la waxay tahay aniga mesela hadda kun markaan gashado kale kun shilin kunkii shilin baa wada isticmaalaya haddaad la socoto wax ka go'ayo meel la dhigayo ma muuqdo sooma markaad hadasho umba qiyaasta hadasha laga goynaa sooma ilaahay ka dhamaad rasiidku ka dhamaad waxa lagu jaray marka meel lagu dhigo xageebo ka go'ay wasaal sayidun saxab ari waxaan u badinayaa wallahu a'lam masaladu inay tahay tartan ganacsi oo muxuu ahaay isticmaala abaalgudaad hesheen saas ay leegta saa haday tahayna wax qaldan شيء كده طب شيء لا بس يقرا بصير يا جماعه وعلى كل جماعه حتى كانوا ايغا جايسه كاغا هذا سان شيء سوما سان شيء ونوع ابل جود او نوع معناها لعقتادي ما واساس سان كجوابي واي تاني garanaysaas way jawaa'iz tijaariya la yiraahdaa kaligood ma aha waxa isticmaala bangiyada waxa isticmaala petrol stationada waxa isticmaala supermarketyada hadaad waxaas gadato waxaad heli sooma tijaarada oo dhan tartankeeda way ku jirtaa fuqahaduna waxay ka dhigaan aljawaa'iz tijaariya dhahan wayna ka hadlaan khilaaf baa ku jira laakiin in badan waxay qabaan inaysan banaaneen waxa kamid ah lajna daa'ima oo muxuu ahay fatawada jamaaciga mamlakada ayaa ka hadlay su'aashan meesha ku qoran waxay leedahay ruuxii ilaahay u tukada 40 maalmood jamaacana ku tukada takbiirta ugu horeysana imaamka ku soo gaadha waxa loo qoraa laba baraa'a min an-naar wa baraa'a min an-nifaaq xadiidkaasi ma saxiix baha waa xadiis saxiixa dad 40 bari shanta salaadoodba aad jamaaca ku tukato mid walbana aad imaamka takbiirta ugu horeysa la xidhato markuu xidhanayo aad la xidhato oodan ka dahay 40 bari isku xigta waxa lagu qorayaa laba shay inaad bari ka tahay ka fayowda naar waad ka fayowdo kalimays nifaaqna waad ka fayowdo oo mu'min baad laakiin tijaabiya waa adagta hawl fudud ma waxa laga yaabaa markaad 39 bari markaad soo jarto maalintii ugu dambeysay inay hal salaad ku dhaafto takbiirtii ugu horeysay marka adayga leedahay baa loogu xidhay natiijada iyada oo billahi tawfiiq ويدي روح ماشي مشوه فاهم هذا قف إلهي غيرك عبودة يا صلاة ما لو حرن كراها بمعنى وحويان هدو إلهي عد أنا هين إني واحتري كرتر روميسين أما إلهي عد أنا هين وبري أما كلمة ويدي سنة أما الروميسين إلا بري كرو كلمة لو ويدي سنكر روح سوحو كتير وشرك روح الشرك كتيرنا السجن العبادة كما الصحضر هذين العبادة دي سؤال صحيحين لقوم دبتو كذا إن العبادة دي سؤال صحيحين القرآن الكريم كاكتوسي النبي قال نوح يقول صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت
la yahbatanna 'amaluka haddaad shirki gasho camalkaagu waa baaba'aya walaw ashraku anbiyadii marka laga soo hadlay nabiyo far badan walaw ashraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun waxay sameeyaan oo dhan waa baabi'ila hadday shirki gali lahaayeen marka ruuxu hadduu shirki ku jiro salaadna uu tukanayo laguma daba xidhan karo hadduu imaam yahay shirkina ku jiro laguma daba xidhan karo masaajidku tujiyo laguma daba tukan karo laakiin bid'a aan gaadhsiisnayn heer shirki oo ruuxu diinta kaga bixi karo bidcooyinka ka sokeeyay aan heerka gaadhaynin waa lagu daba tukan karaa salaaduna gadaashiisa waa ku asaxaysaa saxaabaduna way ku daba tukan jireen ragga ahlul bid'a laakiin bidcadoodu ayna bid'a mukaffira ahayn oo gaalnimo gaadhsiisnayn way ku daba tukan jireen sidoo kale to ragga ahlul macaasiga ah ee khamrada cabe ee imaamiyada way isaga daba tukan jireen ninkii waxaa ka mid ah muxuu Walid ibn Uqba miyash ninkii Kuufa tujin jiray khamriya cabu ah marka isagoo khamriya cabu wali ah magaalada wali ka ah waliguna isaga dadka tujin jiray marka isagoo salaadii ku jira oo dadka tujinahay salaadii subax ma yahay doon malane hal ragcada markuu tuji waxaan u jeedaa salaadii markuu u dhameeyay oo laba ragcadood tuji intuu ku soo jeesaday buu wuxuu aziidukum war meydin kordhiyaa buu waan khamraysan war meydin siyaadiyaa waa imaamkii dhanaa ee salaada ku jira hadana macdaalka saxaabadu way ku daba tukan jireen markuu khamraysan yahay inta salaadiisii waa iska wada lagama goosan jirin Hajjaj ibn Yusuf oo kale Abdullah ibn Umar iyo way ku daba tukan jireen ninkii safaaga ah marka masaa'isha noocaas oo kala macaasida aan gaalnimo gaarsiisnayn ruuxu hadduu qabo waa lagu daba tukan salaaduna gadaashiisa waa ku asaxaysa macal karaha bay culimadu qaar ka leeyihiin hadii aad meel kale heli karto ama hadii bidcadiisu gaarsiisan tahay bidcooyinka lagu gaaloobo laguma daba tukanayo salaaduna gadaashiisa ku asaximayso oo billahi tawfiiq sheekh waqti waa dheeraadaan maleynaya xaafadihiinna lagama yaqaan waqti la dheereeyay iska soo gaabiya mobilada quraanka lagu shubanayo ee laga akhrisanayo ma wax dhib ay leeyihiin ayuu leeyahay dhibkoodu waa hal dhib markaad musqusha galayso ti adigoo quraankii uu ku jira la gali dhibkoodu waa halkaas cudur daar ahaan ma loo fasaxi karaa culimada qaar kood waa leeyihiin laakiin waxay la tahay intii laga maarmi karo in laga maarmo maadaama ay keenayso in quraankii musqushii iyo adoo saxaradii iyo kaadidii u fadhiya ay keeni karto in la iska daayaa fiican laakiin xaraan way ma dhihi karo laakiin iska la iska laga kaaftoomaa fiican dii laga kaaftoomi karo su'aasha u dambaysa insha Allah salaadaha aan lagu tukado imaamku ama arka meel laga imaamku telefoonada isticmaalaya sajidada imaamku ma la arkayo dadkii uu tukanay qof arkayna qof imaamka arkayna waxa dhacday telefoonku oo ama korontada salaadaasi ansaxeeda iyo haddii ay timaado sida dadku imaam aadan arkaynin dadkii ku xidhnaana qayb kamida aadan arkaynin codkiisa una aad maqlayso ma lagu daba xidhan karaa waa salaadu gadaashiisa ma ku saxsaxaysa culimadu waxay isla ogol yihiin haddaad hal dhismo ku wada tukanaysaan oo dhismuhu mid yahay salaadu waa saxaysa laakiin waxay ka doodaan hadduu dhismuhu dhismayaal kala go'an yahay markaana jidad ay dhex marayaan oo loo dhaxeeyo imaamkiina aadan arkaynin dadkiina aadan arkaynin sawdka una aad maqlayso markaas xaaladu waa khatar kaana waxay ka dhigan tahay adigoo televisionka la tukanayo allah akbar imaamkii xaramka maqlayo ka taas marka ma soconayso xogaa ishkaal badan baa ku jira allahumma xaalad daruuro inay timaado mooyee laakiin asal ahaan inda al-ikhtiyar culimadu way diidaan saasay marka u kala qaadaan labada xaalay u kala qaadaan haday dhacdo dadkii oo hal masjid ku wada tukanaya imaamkoodii aan arkaynin mikrofonkii inuu go korontadu tagto maxay sameeyaan haday codkii maqli karaan oo ay mutaabacayn karaan meeshaas kala soconayaan hadayna dhicinin inay codkiisa maqlaan ama dadka codkoodii maqlaanna way ka go'ayaan ayaga meeshooda ku samaysanay imaam mid iyaga kamida hormaraya kaasa salaada inta hadhay u dhameystiray wabillahi tawfiiq شعب الرحمن أديك ما إذا نعم
quraanka ajarka sawdka lagu soo dirayo oo duubay oo qofku isagiyo salaadi ku jira ama musushi ku jira quraanka u soo dhacayo waa fahmay ta kale iyo tiima oo iyadana ay aqoontiga ragcado hadii salaadu u laazimo waqti dib dhaco hadi yaqulu mid الحديث ku saabsan 40 bari shanta salaadoodba inaad takbiirta ku haleesho imaamka ayaa sharti ah ama midan ku saabsan quraanka uu telefoonku ku soo dhacayo oo dhacayo quraanka uu telefoonku akhrinayo kadibna aad iska goynayso telefoonka qabsanayso taasi waa khalad waana isaa wax meel kaga dhac quraanka meel laga dhacayo لأن الله القرآن كم حقوق تلقلي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا القرآن كمرك الأخريو دقيست أو دك رارعية مهمة داس القرآن كله أخريا إن لتدبروا إن لقفايست لكن القرآن كيو استعماش سيدي كمبلي لوكله القرآن هو يوجيسي مرك تلفون يصدع القرآن كيو كويس وروكو صدعي يجا أمس مرك مناسبيته والقرآن ويوجيسي وين كوجيسي التلفون باكو صار داعي بس يجا أمس وركا يجده تلفون كاجا قبصنا إياه ما خلط صوص ما مرك القرآن كا يعني محوها هاي ملقا كده هلا قد دايو حي كلا الاستعمال على الاستعمال وبالله التوفيق